كل waxaan maleynayaa idinkoo salaaman kadib warqadan soo saarnay iyo amarkan soo saarnay waa haysataan cidda aan kula hadlaynaana waa saxaafadda aad idinka laftiinu kamid tihiin weeye bariyan waxa caado noqotay in cid kasta la waraysto cid kasta iyadoo wariyayaasha ama saxaafaddu aanay u aabayeeleynin ficilkan ay samaynayaan maxaa ka imanaya inta guuda ummadda maxaa ugu jira maxay dhibaato keenaysaa taa weeye taan ka hadlaynaa cid kasta oo puntlandera oo xalaala oo aan hubaysnayn oo wax dhaliilaya dawladdu waa ogoshahay laakiin dawladdu diidtay waxa weeye oo mu'aamarada ka soo saaray haddii aad waraysanaysaan qof qabiil ku duulaya ama diin ku duulaya dantiisa ku wata qori gacanta ku sita kaa weeye waxa bulshada puntland lagu kala kaxaynayo warqadda ayayna ku caddahay qodobadu waxaan umaleynaya warqaddu waxa ku qoran waa af soomaali waana idin soo gaadhay ciddii amarka ka dhiga adaysta ayaa baarigraafyada hoose leeyihiin tallaabo ayaa laga qaadaya tallaabada laga qaadayaana meeshay ku caddahay waxaan arki doonaa ciddii amarkan jabisa cawaaqibka ay la kulmaysaa inuu cad yahay gacanta dawladduna ay bir adag ku qaban doonto taasi shaki iyo isiteed midna ma laha waan ku celinayaa dhammaan warbaahinta puntland wixii isku diraya shacabka reer puntland wixii midnimada puntland ka soo horjeeda wax kastaba ahaatee dawladda puntland in la waraysto ama ay dhowda la faafiyo raalli ka noqon mayso waa tahay sacaadatul wasiir waxaa la sheegayaa wararka qaar oo hoose nagu soo gaarayaan inay ciidamo dawladda puntland ka tirsan ay u ambabaxeen dhanka galan oo ay rabaan ciidamada galan iyo inay soo qaqabtaan arrinkaas maxaa ka jira galan haddii lasoo qabanayo galan dawladda way taqaana meeshuu joogo galan waa oday reer puntland bira buu ahaa siyaasi buu ahaa maantana dhibaato iyo meelaan laga filaynin buu ka fadgudiyey puntland ciidankeedu hadday doonayaan galan bulinbu kagama oodna ciidamada aad ka hadlaysaanna ciidamada puntland dhaqdhaqaaqoodu meel walba wuu maraa bil rabadaano barakaysan baa lagu jiraa amniga ayay sugayaan ilaa iyo 9 gobol ee puntlandna ciidamada puntland had iyo habeen iyagoo tiinkadooda wata iyaga oo lugeynaya geed iyo gobol kastaba way joogaan lama odhanayo marka haddii de aad aragteen ciidan tignika wata ama shaqadooda caadiga hay wata hebel buu ku socdaa maaha ciidanka puntland meeshay doonaan bay tagaan meeshay doonaan ilaa buuhoodle ilaa iyo gardafu meeshay doonaan bay safar ku maraan habeen iyo maalina waa joogaan haddayse puntland doonayso inay de galan aado dee galan kuma ay qaadateen baan umalaynayaa wanaagga diyahan la wadin ee saacado kuma qaadateen dhanka kale waxaan xiriir la sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka bari mudane cabdisamed maxamed galan oo aan wax ka weydiiyey awaamiirta ay kasoo saartay saxaafadda madaxa bannaan inaysan waraysan karin isaga sida uu arko waxauna iga jawaabay sida tan waxaa nasiib darro ama ayaan xumo ah dictator cabdiweli maxamed cali gaas isaga iyo xukuumaddiisaba in ay weli kusii dhiiranayaan in ay cunaqabateeyaan shacab weynaha hogaankooda ay hayaan ilaa hadeer inay cunaqabateeyaan oo ay dhinac walba ka cunaqabateeyaan maantayna ay dhinacii saxaafadda iyo xorriyatul qowlka iyo awalba iyagoo dhib badan dadka ku hayay haddana inay gaaraan inay yidhaahdaan cid hadli karta iyo cid la waraysan karo iyo cid warbixin bixin kartaa ma jirto arrintaa waxaan leeyahay waa ayaan darro waana ku fashilan yihiin saxaafadduna maantay waxaa weeye meel walbay taallaa saxaafaddii internationalka ahayd baa shaqaynaya websiteyadii baa shaqaynaya waxaa shaqaynaya idaacado local ah oo xafiisya dibadaha ku leh waxaa shaqaynaya kuwii gudaha ku jiray marka waxaan leeyahay iyaguna waa ku fashilan yihiin cid allaale ciddii rabta inay hadashana maanta way hadlaysaa waabaa beriyey xilli maanta la iscaburin karo ma aha saxaafadda waxa ay dadku rabaan inay ka sheegaan maanta annagaa banaanka jooga qof kasta oo dulmane reer puntland ah annagaa diyaar waxaanu u nahay inaanu difaacano si uu xorriyadiisa ugu hadlo inay meelaha digriya ka soo saarto iyo cabdiweli maahe awood kale ay dadka ugu yimaadaan ama ay yidhaahdaan dadka yaan lala hadlin ama dadka yaan loo sheegin malaha marka waa ay ku fashilmeen arrintaas shacabka reer puntland iyo bahda meediyahana waxaan leeyahay waxaan idinku mahad celinayaa bahda meediyaha sida diiran oo dhiiranaanta leh oo geesinimada leh oo shacabkiina ugu adeegeysaan marnana ha u nuglaanina dikreetooyinka uu soo saarayo keligii taliye cabdiweli maxamed cali gaas iyo xukuumaddiisa wiilasha yaryar oo isaga u shaqeeya xukuumaddiisa ah oo meelaha usoo jariifa oo isaga wararka ugu dhiibo meelaha la taagan macno badan shacabka dhexdooda kuma laha
حيل عدولي والمانت معنا بدن كلها هنا وضدكي كرسون دي شعب في ودي سيدك وقال نقدين ولا شيء يرير ومالها كسر أوروب صديق وسجل لا تشوفنا معنا بدن شعب كده ومالها وحاي مالها كقرآن أما يسبوا كقرآن وحشقين يوضدك كيف سنة يماها وحن لنا أنا إذن جرب تاجن أما إذا إذن أما السياسيين إذن أما عند الجرب إذن أما إذن كجرب تاجن يا شعب كنا وشقيسان مرنا أرنتها سوي نقولاننا مرنا يسندرين كنا وحكي بدرين شغلة هيسان هروي وسي صعبة شعب كنا إذن جرب تاجن هاي وأنا أقول يسان وأنا هوشي ليدين إذ مريضات هيسان